kamid ah haweenweynaha ururka maasha Allah oo ku dhaqan wadankaasi Holland kana soo jeeda gobolka Awdal ayaa maanta deeq lacag oo cadadkeedu dhan tahay $186 oo Mareykan ah ku soo hagaajisay ururka maasha Allah oo magaalada Booramo u fadhiyo cibaado oo cilmi oo kana mid ah ururkaasi munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay magaalada Booramo lagu kala wareegay lacagtaasi ayaa waxa joogjoog ka ah culimaawiin ururka maasha Allah ururka tikiisa ee sharaf ugu horeyn hadalkaasi waxa furay cibaado oo cilmi oo kana mid ah ururka maasha Allah ururka maasha Allah iyadoo ka hadashay isla markaasina istul taatay adeeqdaasi halka ay ka soo gaadhay iyo walaasha muxsinada soo dirtay. Assalaamu warahmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaan ku joognaa dadka waxaan u joognaa dad maxaan idhahay jooga Yurubta oo lacagta noo soo diray oo anagoo ah ururka la yiraahdo maasha Allah oo fadhigayaguna yahay London marka hablo waxay soo diray ururka iyagu kamida oo Holland jooga magaceeduna gabadha ka madaxay aniga ii soo dirtay lacagta waxa la yiraahdaa Mooga Geelle Warfaa ya lacagtan ii soo dirtay lacagtan oo ah $1,860 oo Mareykan cibaado oo cilmi oo hadalkeeda si wadata ayaa si rasmi ah ugu wareejisay deeqdaasi lacagtaasi oo cadadkeedu dhanayd $186 Mareykanka. Dr. Cali Cabdi oo kamid ah ururka Sharaf waxaana uu wakiilatay inuu si rasmi ah ugu wareejiyo isaguna injineerka gacanta ku haya ku wareejinaya meeshii ay ahayd maxaan idhahay waxaan u soo sameynay meesha boon ee la doonaya inaan agoomaha u dhisno iyo lacagtaasi loo soo diray oo ku socotaa waxaan u dhiibayaa inanka walaalkaya salaamta $2 oo dhan waxaan ka guddoonay walaashayo cibaado aan waa kan Dr. Cali Cabdi oo istul taagay hadalkaasi wuxuuna yiri anagoo ururka Sharaf runtii anagana sharafna way noo tahay wada ajarna waa noogu jira dadkaasina waxaan u ducaynaynaa dadka walaalaha ee dadka soo gargaaray agoonta waxaan ku wareejinayaa ilaahay Cali Cabdi oo kamid ah ururka mas'uuliyiinta ururka Sharaf ee loo soo wakiishay inuu deeqdaasi ku wareejiyay injineerka ka jasaaysiyo waxaan ku wareejinayaa allaale oo isagu xarunta jooga agoomada ayaan ku wareejinaynaa waana u ducaynaynaa dadkii arrinkaas oo gabadh baa ka xanuunsanaysa in loogu duceeyana way insha Allah ilaahay ha caafiyo ilaaha caafiyo meesha ka soo saartana ilaahay ha u geliyo wax ka badan iyo xasanaad barakallahu fiikum ayaa isaguna geestiisa kale waxa ka mahad celiyay deeqdaasi una duceeyay sheekh injineerka gacanta ku haya injineer Allaale Xasan kana mid ah dad injineerada gacanta ku haya dhismaha loo dhisi doono dadka agoomaha in wax lagu baro islaama waxbarashada iyo sidoo kale malcaamada ee laga dhisi doono degmada Boon ee ka tirsan gobolka Awdal. injineer Allaale oo halkaasi ka hadlay ayaa u duceeyay walaasha muxsinada ay soo gaarsiisay deeqdaasi Allahna uga bariyay inay deeqdaasi halka ay ka soo saartay ugu bedelo bedel khayr qaba arimahaas iyo arimo kale istul taagayna waxa uu sheegay guddoonay waan ugu ducaynay khayrna ilaahay hasiyo halka ay ka keenayna ilaahay wax wanaagsan oo khayr iyo baraka ugu bedelo gabadh muxuu ahaa caafimaadna Allah siiyo gabadha xanuunsanaysana ilaahay caafimaad ha siiyo waa bisha Ramadaan ee barakaysnayd waana u ducaynaynaa biidnillaahi waahid ahad ilaahayna dambigooda ha dhaafo dhammaantiina waxaan ka rajaynaynaa wixii halka agoomaha loo dhisayo in ay ku soo dadaalaan sida gabdhahayba ay u soo dadaaleen waa wax if iyo aakhiraba ajir leh ilaahayna inoogu dambi dhaaf doono insha Allah
وبارك الله فيكم والسلام عليكم. في munaasabadaasi waxaa soo xiray dhakhtar sheekhawi oo ka mid ah ururka sharaf isla markaasina munaasabadaasi goobjoog u ahaa waxa uuna walaalaha kale ugu baaqay inay ka qayb qaataan dadka agoomaha ee loo dhisi doono iskuulka iyo madrasad quraanka ee wax ku baran doonaan ee laga dhisi doono degmada Boon ee ka tirsan gobolka Awdal waxaana walaasha muxsinada ee ka tirsan ururka sharaf ma sha Allah uga beriyay inuu eebo halka lacagtaasi ay ka soo saartay ugu bedel khayr qaba hoolaan jooga ee ku soo deeqdaas agoomaha in lagu dhiso hoy aad baan u duceynayaa waxa kale oo duceynaynaa ururkan ma sha Allah ay nagala joogto cibaado oo cilmi وأنا بنوجه كنا بدو عيننا هوش عيوينا وطن اسمه وحمريا سايس ومريا وحمقا اسمه وبنيه وسيس عندنا تذكر أردن بين أي كهوة كلام وهوش ولا قيمته كقانون الدكتور علي ملوى تقنانه كله وقدومية أورك شرف وسق وحنقول عليه برئنه يسقونه مركنا نقضى وحنا وحنا كدرسن كلام هدو كدرسان ساس وحنا خير إلهي هسيو أقومه أنا وحنا كل يوم رسولك عليه الصلاة والسلام أقوم توقف كفالة سيئة كنا ذا أنا جيو صلاة فرض بقولنا هاي برسولك عليه الصلاة والسلام معناه أنت هاي ربان دير هاي كنا ذا صلاة الله فرض بقولنا هاي بودي مركا أقومه هو ماشى وهو أنا أحسن كنا له وحليه إن لو نحرسته إن لو تكرفه إن وحنا ترى أقومك إلهي سبحانه وتعالى دي رسولك عليه الصلاة والسلام أيضا قرآن كوشيء adiga agoona miyaan ku soo herin adiga ilaahay baa ugu sheegay rasuulka marka in agoomahaasi ay yihiin agoomo lagu janno galayo waxtarka lagu qabanayo lagu janno galayo hadalka loo oranayana lagu janno galayo oo wanaag fara badan ay ku jiraan agoon in loo moogtahay loo tagrifaro ama loo kafaalo qaado ama waxay u baahan yihiin balse hadda noqoto kabo dhar wixii la heli karayo إمكاننا نسمع والله صدق ميل أحكو برتان وقرآن كي كحفتيان وحبرشة وكم قاتان أن العقل هين بلا أشياء هي الله ولا أوركاسي هلوت كي هاي ما شاء الله عبادنا يقول شوكتو أدبر ودعينا بلاه ولا نشوفه العقد أصاب بحسيننا إلى هاي ما يشارك أصاب بحسين وحقير بلاه إنه بدلو وحدوني سين إلى إنه بدلو عافمات هاي إنه بدلو قبل إنه نجح 5 سنة إلهي عافمات تماسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرزاق عمر ميعاد عبد الرزاق قوليو حاجة نيوز.com مجلة بورما.